waxay ahayd quruxaan araggeeda nasiib u yeeshay iyo milgaan barashadiisa ku garaadsaday waxaan ugu ildoogsaday sida cosabka kaymaha laaca waxaana u udugsaday sida guyi hooyaday codkeeda waxaan u dhaga nuugsaday sida dookha muusiga dabacsan weedheedana waxaan u dhuuxay sidii laf dhuux leh oo laba dhagax loo helay wax badan bay erey aanu ku kala fogaan lahayn afka kala masuugtay oo laabteeda ku xajisay iyada oo weheshiga naftayda ee xaysanaysa aniguna dhaaxaan galka jacaylka si hagar la'aana uga dhuray erayada maguuraanka ah nolosha ayay macno u samaysaa suugaanta caashaquna iyada ayaa ay ku saabsan tahay xasuusta maalmaha jacaylka waxaa ka mid ahayd aroor shuux oo roob mirda'ay subaxdii mayeyey cirka daruur madow baa ku giblanayd roobku si qunyar ah baa uu arlada u soo gaadhayay isaga oo dabayl fudud oo ka sanqadhinaysa lagu ladhay xiin buluug ah baa hareeraha ka muuqday urta saxansaxada iyo neecawda dooguna waa ay faafayeen dhibcaha yaryar ee shuuxu sida xadantada leh madaxayga ugu cashariyey waxaa la moodayey inaan ciraystay kob cufan oo ay geedaha quraca yucubka bilcilka cadaadda libowga dhuyuca muqlada xagarka gomashka iyo duurku isku baxeen oo hal dhashay isu taal baan bartankeeda ka gacala daymooday sidii inay iiga soo muri doonto daqiiqadahaas oo isugu jiray boholyow iyo baxnaano waxaan dhegaysanayey heestii aamine cabdilaahi ku qaadi jirtay oo malaha jawigan oo kale waa hore midhaheeda laga falkiyey cabbaar kadib geel baan wax ka maalay gaawaha buuxa markii aan labada dhaban haystay waxaan niyeysanayey inay ila wadaagayso markii aan haaba idhaahdana waxa i cawarayey sawirka cidlada daruuraha cirkoo shuux soo shubay aroornimo dabayluhu shanqadhiyeen shabaxleeyey dooggii shisho qof aad u jeceshahay sheedda ma iska eegteen miyaad shuqulka caashaqa baahida ku shawrteen magaceedu aradka waxa uu kaga qoran yahay dhulka ciid guduudda ah ee doolla iyo hawd samada waxaa laga xusaa labada ismartiya ee dayaxa iyo dirirka sidoo kale waxaa jabaqdiisa laga maqlaa goobaha cawayska iyo caddaloolka iyo fadhiyada kala duwan ee dabaqadaha beeleed waxaa la werin doonaa inta af soomaaliga la isu tabinayo sida aawadeed waxa uu ku waaray hogagga lama ilaawaanka ah ee taariikhda waxay ila gooshtaa labada goorood habeenka iyo maalinka waan ku tashadaa oo nolol ay ka maqan tahay mala kuma awaalo cindigana waan ka dugaashadaa taasi waxay fahansiisay micnaha heesta dhakhtarkii jacaylka ee khadra daahir ku qaadi jirtay midhahaas oo marka lasoo gunaanado noqonaya jacaylkii mar walba iyo meel walba jacaylkaygii boorame kii bullaala iyo harar berberiyo hargaysa kii banaadir igu helay waa jacayl lilaahiya iyo axdi lilaahiya halbowlahan ku habay qalbigana waanu gureeyey had kale hal kale iyo hab kale baan isku heli doonaa noloshu waa howlqabasho sugaysa cid walba oo noolna waxaa lagu qiimayn doonaa kaalinta ay maaraynta hawshaas ka gasho nimaan tabcani ma guursan karo nimaan guursanina ma tabcan karo labaalaydaasina waa isa surantii noloshu caanka ku ahayd sida aan anigu qabo calaf wuxuuna siiyaba waa isla cuni doonaa sida dhaqanku qabana geel baan ka bixin doonaa ayaan wacan baanu leennahay godolkii nabsigu iba xidhay baa nasiibku dib u irmaanayn doonaa wuu gaaxday mooyee muu gudhin jacaylkii mar unbuu galgaalbixi anna maan gabaabsiin mana gabin hankaygii gacalo waa halkeedii